ololaha nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda xaafadda Indhaceel ayaa maanta waxaa laga bilaabay xaafadaas kadib fatahaadii webiga oo uu saameyn iyo wasakh uu ku reebay. Gudoomiyaha degmada Abuula Burda Faysal Haajir Aadan ayaana qayb ka ahaa ololaha nadaafadda xaafadda Indhaceel, waana xaafadii ugu horeysay oo iska nadiifisa wasakhdii iyo qashinkii webiga uu ku reebay. Gudoomiyaha xaafadda Indhaceel Juraayare oo goobta ka hadlay ayaa maamulka degmada ka codsaday in ay agabkii dadkani ay ku shaqeyn lahaayeen ay u keenaan. dadkan maanta meesha iskugu yimiday waxay ka shaqeynayaan ololihii nadaafadda ee xaafadda Indhaceel. saakay waxaa isku soo baxay dad aan tiradooda aan yarayn, waxayna isku soo baxeen xaafadooda inay nadaafad ay u sameeyaan, ay muxuu ahaa qashinka ay ka gubaan ama ay ka nadiifiyaan. waxaan la'aanahay marka agabkii lagu shaqeynayay ayaa aad noogu yar. waxaan ka codsanaynaa maamulka degmada ugu horeeyo gudoomiyaha degmada, agabkii lagu shaqeynayay cid uu la kaashanayo la kaashado, agabkii lagu shaqeynayay xaafadda Indhaceel inuu na siiyo. Gudoomiyaha degmada Abuula Burda Faysal Haajir Aadan ayaa asna waxa uu mahadcelisay xaafadda Indhaceel sida ay isku xilqaameen, isagoona sheegay in shaqadani ay socon doonto. awaamirtii madaxda dalka ugu horeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolkaba in dalkan isxilqaan lagu qabto, lagu dhiso meel walbaba, shaqo walba dalka laga qabanayo in isxilqaan lagu qabto. waxaan aad ugu mahadcelinayaa xaafadaha degmada ee qaar ka mid ah ee ugu horeeya xaafadda Indhaceel ee saaka isxilqaan ku sameeyay olole nadaafadeed kana socod doonto ilaa iyo weegaan in lagu cirib tiro xaafadii iyo dhibaatadii ay u geysatay webigii fatahaadii. insha Allah taala aad idinka mahadcelinaa xaafadda Indhaceel.